kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogta aflaanta ee toddobaadkan. barnaamijku waxaa idin jeedin doona aniga Axmed Jangoon iyo waliba Firdawsa Maxamed Maxamed. qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa Firdawsa actor-ka la yiraahdo Arjun Rampal oo dabcan ku jira baaris ay ku hayaan waaxda NCB-da ama waaxda dabagalka daroogooyinka ee dalka India. waa narcotics control bureau. Arjun Rampal waa xidig ama atoore caanka ah Bollywood-ka waxaana hadda la weydiinayaa ama waxaa la sheegay in jimcadii la weydiiyay aan raahdo su'aalo ku saabsan baaritaan daroogo oo NCB-da ay weydiiyeen. waxaa Rampal iyo gabadha saaxiibka ay yihiin ama gabadha lamaanaha waxa Gabriela la yiraahdo oo dabcan iyadana arbacadii iyo khamiistii ayaa su'aalo kala duwan ay weydiinayeen waaxda dabagalka daroogooyinka. waxaana xusidnaa sidoo kale in la xiray ninka lagu magacaabo Paul Portal oo ah saaxiib u dhow ninka la yiraahdo Arjun Rampal sida ay wakaaladu daaha ka qaaday. Arjun Rampal waxaa saxaafadu ay ku wareysatay xafiiska dabcan narcoticska markuu ka soo baxay qoliyaha NCB-da markuu ka soo baxay saxaafadu wareysanayay. waxa uu sheegay in uusan wax tacaamul ah la lahayn daroogooyinka ama uusan isagu daroogooyin iyo waxaas uu ka ganacsanaa muusan isticmaal. wuxuuna sheegay waxa lagu soo raacay ama halka laga soo raacay inay ahayd rajo ama rajito dabcan rajo yaqaan soo rajo in dabcan gurigiisa agtiisa laga helay. anaga ka hor meel walba noo taala rajada ya adduunkana waxa waaye rajo agtaada hadii laga helo sababta macnaha yaa ogaa waano daawo aan dhakhtar kuu qorna cun markuu uu leeyahay waano si fiican iska cuni kartaa rajada agtiisa gurigiisa agaarkiisa laga waa andan waxaa dhacday Firdawsa in rajadaas dabcan loo gudbiyay waaxda dabagalka halkaas aniga laga soo raacay maxaa keenay rajadan gurigiisa ninkan baaritaanka halkaas uu bilaabay ninkan waxaa xusud badan in loogu yimid halka la yiraahdo Billard State oo ah meel uu degan yahay walibana dabcan waxaa loo yimid Rampal 42 sano jir ah xilli ay ku beegnayd 12ka waa alasaydi xilli ay ku beegnayd xilliga dabcan Mumbai oo ayaa loo yimid ninkan waxaana la weydiiyay su'aalo gurigiisa lagu weydiiyay kadibna xafiiska loo ka haystay 7 saac xafiiska lagu soo haystay Arjun Rampal markaas soo laabtay. Arjun Rampal waxaa xusud badan in uu yahay atoore isku bedelay moodariiste laakiin wuxuu ka qayb yahay dad badan oo loo haysto kiiskii ninkii ahaa Sushant Singh Rajput oo bishii June geeriyooday laakiin ilaa iyo hadda sababtii uu ninkaas isku dilay kiiskiya socda oo dad badan su'aalo laga weydiinaya. Arjun Rampal qayb ku yahay markaas. Arjun Rampal marka keligii ma ahan sidoo kale waxaa jirta in producer-ka Bollywood-ka lagu magacaabo Bruce Khan xaaskiisa sidoo kale la xiray iyadana kadib markii haash ama mataqaanaa ay sheeg bahashan la yiraahdo xashiishka xaafadeeda laga helay oo baaritaan lagu sameeyay xaafadeeda laga helay marka waxa lagu eedeeyay maadaama xaafada Joo la yiraahdo badi dadka caanka ah ay degan yihiin gurigeeda agtiisana laga helay in iyaduna ay dabcan ka qayb tahay dadka isticmaala maandooriyaha. gabadhan waxaa xusud badan markii dambe lagu sii daayay damaanad laakiin waxa ay sheegeen in baaritaanku sii socon doono. sidoo kale dadka sababtii ama dhimashadii dabcan ninka la yiraahdo Rajput dadka loo xiray waxa ka qayb ahaa ama wax laga weydiiyay gabadha lagu magacaabo Riya Chakraborty oo saaxiibtii ahayd girlfriendkiisa ahayd. sidoo kale walaalkeed ninka la yiraahdo Shawik asna waa la xiray. dad kale oo ka qayb ahaa kiiskan waa la xiray. wali marka waxa leeyahay fari kama qodna dadka wixii damaanad ku bixi kara ku baxaan wixii kale su'aalaha la weydiiyay laakiin kiiskan fari kama qodna oo baaritaanka Bollywood-ka oo socon doona iyo daroogada iyo Firdawsa Bollywood-ka waxa isla xiriiriyay dhimashada ninkan laakiin waxa leeyahay Bollywood-ku waa meel xiran oo dabcan teed xiran oo aan la geli karin kaas oo dabcan aysan u fududeyn waxyaha sirdoonku inay galaan ama waxyaha dambaaristu inay galaan marka iyadoo la og yahay in xitaa waxa leeyahay beec mushtari maandooriye ayaa jira oo Bollywood-ka dhex jira waxa jira leeyahay dabcan dad isdura waxaanay waxa leeyahay marka 30 sano la soo dhaaf 20 sano la soo dhaaf wax caadi ah ayaan meesha caadi ka noqdeen marka waa in laga daba tago marka baaritaanku waa socdaa Arjun Rampal 7 saacadood xiriirha su'aal la weydiinay jimcada dhankaaga ka waran Axmed waxaan hayaa warbixin ku saabsan Ranveer Singh actor-kii la oran jiray iyo actor-diisii Deepika Padukone lamaanahan ayaa waxa la leeyahay waxay yihiin lamaanaha ugu awooda badan ee Bollywood-ka marka hore midda xigta 2 sano kadib waxay sanad guuro u sameeyeen guurkoodii arooskoodii u sameeyeen oo dabcan bishii ama sanadkii hore xilligan oo kale ku aadanaa waxayna ku aadiyeen xafladda Diwaaligoodii oo dabcan xalay Diwaali ahayd oo marka fi sabti Diwaali ahayd marka bashaalku hindidina ciidii tahay rinjiga aad dabcan faysada waxa la yiraahdaa Diwaaliga aad 2 sano ka hor actaradan iyo actorkeedu waxay isku guursadeen Italia
arooskoodii halkaas ayuu ka dhacay axmedow haddana waxay u dabaaldegayeen 2 sano kadib sanad guuradoodii guurka actorka ayaa barihiisa bulshada wuxuu kusoo qaatay 2 sabir anigu dhaho wuxuu leeyahay ruuxdeena ayaa isdhex gashay cajiib sanad guuro wanaagsan gacalisa Deepika Padukone cajiib Deepika ayaa isla sabiradii soo qaadatay iyana waxa ay leedahay nolosheeda ayaad wax badan ka bedeshay waxaadna noqotay dhameystiraha nolosheeda waa hadal cajiib ah runtii axmedow lamaanahan ma aha wax isku qariiba oo jacaylkaan muddo dheer oo soo socdo 6 sano xiriiraha ka dhexeeyay Deepika Padukone iyo Ranveer Singh waxaan xusban in guurkooda uu dhacay intuu soo dhicin bishii November 2018 ay 6 sano xiriir soo lahaayeen sidoo kale axmedow waxaa xusid mudan lamaanahan in la leeyahay jacaylkoodii wuxuu ku bilowday filimkii uu director ka ahaa Sanjay Lala Benzali aad filimkaas ayaa la leeyahay Ram Leela aad filimkaas kadib waxaa la leeyahay filmaano badan ayay soo saareen jacaylkoodiina xilligaas ayuu bilowday Funny Bajrao Mastani Badbad filim badan aad dhan kale waxaa la leeyahay filimkoodii xiga wuxuu noqon doonaa Kabil Dev iyo Rami Dev filimkana wuxuu ka sheekeynayaa sheeko ahaan guushii xulka qaranka India ay ka gaareen cricket-ka adduunka ee cricket India macnaha waxa waaye koobka adduunka ee kubadda cagta waxa loo ganaaxay India banooniga wuxuu ku ciyaari jirtay taqaanada banooniga waxay dhahan kobo dhan loo geli karo anagoo ma taqaanaa ii sheeg oo macnaha kobo la'aan ama ka qayb galayna baash Indiaanka koob hadii laga siibo waa la yaabila adduunka cricket amal way ciyaari lahayn kubadda cagta cajiib cricket-kooda cajiib ah Soomaaliya cricket-ka qatarkiin filimkan ugu siinaayo India qatarkiin waxay marka koobka adduunka xilli waxa jirta macnaha FIFA waxay ka codsadeen anaga kooblaan aan ku ciyaarnaa koobka adduunka kooblaan lagu ciyaarayo marka India waxay dhaheen nada koobka adduunka kooblaan lagu ciyaarana waa ka baxnaba nabadi aad laakiin 1983 ay qaadeen filimkan wuxuu ka sheekeynayaa qisadaas guushaas uu ka sheekeynaya kabarkaana director filimkaas ka dhan kale Deepika filimkeeda ugu xiga wuxuu noqon doonaa filim la yiraahdo Shakum Badra halka filimkiisa xiga uu noqon doona filim ugu horeeyay leeyahay la yiraahdo Sarkas sidoo kale waxaa jiri doona filim la yiraahdo Jartar oo dabcan oo jiri doona ninka la yiraahdo sheekooyinka dhankayga markaan ka sii wadi doonaa Firdawsi waxaana sheekada xigteen soo qaadanaya ay noqon doontaa gabar la yiraahdo Sawara Baskar oo ka sheekeynaysa sababta ay da'deeda uga beenshay waxay ka khiyaana jirta tiiga jira marka Bollywood la joogo 20 la jiray si fiican ilaahay ku dharshay duqdo reeqa la dhaho aad ka qorxda badan marka la leeyahay waxaan ku dhahay 40 qiyaasiis cajiib goomanka aragto karina kubur ku yaal mislada 20 jirta aqoolma gabadha ilaa Sawara Baskar ayaa waxa ay qaratay interview ay dhawaan bixisay in ay dhowr jeer da'deeda ka been sheegtay ama ay si ka saddeedeeda la sheegay marka sanadii la soo dhaafay marka waxay tiri aniga marnaba da'deeda runka ma sheegay waxay sheegtay waxa qasab ee xogaa yar nusqaan oo ku sameeyay waa iska yareen oo waxay dhahayd waxa la yiraahdaa mugtahay ma taqaana waxa la yiraahdaa gabar 8 ma dhaaftin heerkaas haye 18 ka beeqa jirta 8 ugu celin raguna Axmedow da'dooda mar walba runta ka sheegay ma macnaha waxa waa ilaahan weynay bidaarta sheegaysa inta ma idin daboolan si fiican hada rag ma qasan kartaan wax walba idin sheegay marka waxa ay gabadhan sheegtay in ay 4 sano muddo 4 sano ay waxay lahayd 28 sano jira dadka qofkii weydiiyay meeqa jirta 28 4 sano ma dhaafin ba waxaan la yaabay in uusan qofna ifahmin عجيب إلى سديد إلى تنصر سديد إلى تنصر ولا أحمد أكجوجي هذا سديد إلى تمدى في يعني هذا وصلت له سنجر وعايشة تمرك أي صدق سنجرتي يا إن أي سوق كيك أو أي فرنة تكتي كيك ولا شيء يسميه تورتها أكيد ولا شيء دي مركا محل وقرا هي فردوس محمد محمود محل وقرا كيك منطقة أي شيء دلشة ما عاود جرسنا أنا عاود بلدوشة صدقنا جرسنا ممتع شن لا تنبي قرا عجيب شن سنة عليك جرب ماشي جوجا يماد بركة يمادنا شن لا تنبي جرتي سديد لا تنبي جرتي ورمية وأنا وحنا واحد الواقع ده عادي صوته بينا وحنا نقول شيء قاعد ترى 6 توصل وإذا الخصية بين طبعا وعني أنا قلت رجل marka waxay tir markii dambe dadku ay u qabteen waxa ay tiri waxaan caadi iga yihiin xaqiiqa caadi ka yihiin waliba waxay tiri markaan 30 sano jirtay 25 aan qortay 28 sano 4 sano jiray gabadhan waxa soo filimkeeda ugu dambeeyay waa filimkii Farid Wedding Farid Wedding ugu dambeeyay filimkaas oo dabcan kadib waxay heshay laba filim laakiin musalsal ay ahaayeen waa school teacher filim ku mataleysa ama gabar dabcan macallimada filim ku mataleysa oo yiraahdo Miruda heshay kaasoo filim muran dhaliya ka noqdo markii Amazon Prime Video laga daawaday musalsalkaas noqday dabcan midaan la jeclaysan noqday sidoo kale musalsal Idarsna laga daawaday oo leeyahay Flash iyo isagana sameysay oo ay ku ciyaaraysay door ah inay tahay gabar askariyad ah oo booliis inay tahay taasoo dabcan ka hadlaysa dhibaatada traffic iyo jam iyo mataqaana dadku ay ku yeeshaan aadanaha
sida looga bismaanto bixi karo sawaara filimkeeda wuxuu noqon doonaa musalsal la yiraahdo vaag bani vaag uu noqon doonaa kaasoo dabcan Netflix ka laga daawan doono gabadhan marka waxaa xusud mudan inay ka qayb tahay gabdhaha door walba ku soo bixi kara waa gabadha la yiraahdo Sawaara Baskar haddana waa 32 sano jir sidoo kale gabadhan waxaa xusud mudan in ay dabcan u diyaarsan yahay film ninka lagu magacaabo Faraz Ali Anzari uu sameeyay oo ka shaqeynaya dadka isticmaala isku jinsiga adiyad in oo maasanta dadka isticmaala isku jinsiga dadka isticmaalada yani dadka isticmaalada hadana isla ayaga jacaylka isku jinsiga naag jeclaanaysa nin jeclaanay marka hore ugu gudub عجيب أحمد waxaan u qaatay jacaylka isku jinsiga dadka isku qabaa'ilka ah isla degan ما سنت أحمد أكشي كمار أيام وحن كسوجيني أفلام بدن وحكون باقي إنه سمين دونا فيلم أكشي إنه بعادي معهن المدالة بوليوود كمان ليك فيلم كي أما بالله أكشي صوته عشان إلى 20 سنة وحال سكودا هيت عند مارين أديات متى أكشي فيلم كيسو قدام بيه أما أفلام كيسو سنة ولا برضه عفر فيلم لو كان عاديا لو يقان أكشي أديات أحمد وهذا وحولية فيلم عصب أيام صاري دونا برتيس أيوكو حقيقي إنترنت إن براه بالشدة وحولي يري إن فيلم عصب أيام صار يا لقونا مجعوه رامسي 2 إن أكشي كمار يا وحو إن هذا الكيس يسوي سوى تقولي وإن إن ماركتين فيلم كاني أو عن إن فاستضد الديوالي وسنة كدمه السنة كدمه مركز شيء حقيقينا يا ديوالي عن أيضا التاجية أديات وحال سنة ديوالي حقوق بسنة أديات وحماش سوتها استار باور اللي لو حسوكر وحنا ابنا ما قبسن كرت ديوالي وحال لوجا عرر oo dadku badi ay soo qabsan star power ka tusoo dhisnay diwaali lama qabsado أديات tusaale diwaaliga waxa soo qabsanaya 3 filan soo qabsanayso 3 filan mid waxa wata amar qaanin Salmaan Qaan wato أديات hadii aadan iska dhicin karin amar qaan Salmaan Qaan ما هي diwaali caadiyan waa la yaqaana amar qaan waxa iska leh Salmaan Qaan iska leh diwaali أديات Salmaan Qaan diwaali asaas kale أديات بدنا ما صامر لنا أذنك وحولي هاي نكري لهذا بدي واحد أمر كانوا قصدا ما تقنا عيد مسيحي وقصدا عيد هندينا سلمان كان قصدا ودوالي وقراعة المكان مركا حدي أذن أودين إن ما تقنا إيش فاستدعس عاد كخيب بشو ودتكم أنا كسر فاستين يا فيلم كاس في ما تسلقوا فاستين دون تكنا يسيب على سداد أودين الله ما قصدا دوالي مركا أكشلكم أروح أدريم كتانو قارب ستار باور وسرع عدين كرو هذا وحان هذا وحوغا اسكالوديا وسلمان يا عامر انت كلا waxa waaye wajiga dadamay adiyad si kalsooni buuxda leh ayuu u yiri in waa inaan diwaaliga soo socdo aan ka taxadar Ramsi 2 iyo diwaaliga soo socda igu tashtuuleeyahay adiyad in Akshay Kumar ayaa la leeyahay filimkani in wuxuu soo saaray sidoo kale kaartadiisii isagoo Axmed oo ciimamadii aad u qurux badan ugu dhawaantay oo runtii laga sheekeyn karin inaba caadi ma aha Abhishek Sharma ayaa wuxuu ka noqon doonaa directorka filimkan isagoo filmaan kale u sameeyay dabcan in Akshay Kumar in ninka la yiraahdo in Jakandar Barkash ayaana filimkani wuxuu ka noqon doonaa in maalgeliyaha filimka sidoo kale in directorna uu yahay filmaan kale uu sameeyo aad u badan marka fiiriso Ramsi 2 waa qiso cajiib ah waxaan xusid badan in laga sheekeyn doono Akshay wuxuu ayaamaan u batay dhanka diinta diinta ku taxallijiya Akshayna mar walba wuxuu ka hadlaa waaqiciga bulshada waxa ay ka hadli jiray marka filmaantiisa ugu dambeeyay wuxuu ka hadlayaa arrimo bulsho hadda wuxuu u bedelay Akshay inuu ka hadlo arrimaha diinta marka Akshay Kumar filimkan dabcan wuxuu ka saari doonaa ninka la yiraahdo dabcan Ram oo dabcan dadku ay u haystaan sanad ay caabudaan inuu yahay marka wuxuu leeyahay sanamkaani muxuu ku taxalluqa oo ka sheekeyn doono waxaani ma quraafada ma soo wax sax ah aad wax dhab oo sheekeyn doono Akshay Kumar marka dabcan waa mid kamid ah atoorayaasha ugu caansan ee Bollywoodka filimkaas soo sheekada ninka ugu dambeysay waxay noqonaysaa gabadha ugu magacaabo Sanam Kapoor waxay sheegtay haweenka in Bollywoodka ay dabcan marka la fiiriyo lagu bartilmaameedsado inay yihiin bartilmaameed ka jilicsan ragga waxay tiraan waxaan ahaa soft target marka la fiiriyo ragga marka la fiiriyo soft target anaga u jilicsan anaga u jilicsan bartilmaameed tan iyo markii uu haweenka Axmed waxaan bisleeyahay meel kasta ay joogaan waa sidaas ده harassment يا لهذا السوان aad wuxuu qeyrnaa yani in sexual harassment lagu sameeyo dhibaato badan loo geysto laakiin waxay noqotay Me Too movement si loo sameeyo wax badan in banaanka la soo dhigo barnaamij jira Me Too movement yaa jiro gabar walba ay uga hadlaysay ما تخانا إيشاد بهاتدي لو قلقا أنتي فنك أنتي رب بدن باشا سلوكو يارتو ساجدني نياد ولا كميد ها أنتي دارتك عنك ها وحا كجري نينك اللي هذا أنا بتكرا كجري أما يشون تساو تقانو رب بدن كجري مركو أو دبح لو شكي أو تارك دي بدن ها أو قبل بهاتو جيست أو جرايان عجيب مركا
waxaa la yidhi bollywoodka tan iyo marka uu ka baxay ninka lagu magacaabo Sushant Singh Rajput 14 June waxay ahayd in mar walba ay soo bixaysay baaritaan cusub iyo bartilmaameed cusub iyo NCB-da kuwa raadsanaysa iyo darooga laga baaray dadkan iyo waxaasna dhahay cajiib marka bollywoodka dadka caanka ah si way isugu xiraayeen group ama waxay ahaayeen asxaab iyo si un baa la isugu xirnaa dadka badi markaad fiiriso Instagram-ka iyo Twitter-ka iyo marka dabcan sheekooyinka lagu qaado qofkii uu hadalku ku bataba waa la aaday adiyad marka Sonam Kapoor oo gabar la yiraahdo Anil Kapoor walay oo gabar dabcan aabaheedna uu actor weyn yahay ayaduna actorad weyn ayaa waxay ka hadashay arrinkan waxay la hadashay dabcan warbaahinta India la hadashay waxaana ay sheegtay waxay tiri anigu liiskan marka aad fiiriso liiskan markii hore kuma jirin laakiin waxaan doortay inaan xarunta tago NCB-da maadaama de waxaan qoray hoos ku soo gaaraya liiska macnaha waa soo gelay liiska waa kugu soo socotaa adiyad marka waxay tiri aniga ana isgeeyay maxal igeena mid kale waxaan soo waqtigeyga ma sugin rag iyo dumarka meesha isku si marwala maxaamadaha soo fiirnay marka waxaan waayay tiri dadkii rag iyo dumarka wax isku si loo macaamilamayaan su'aalaha ragga mataqaan aan loola bareeri karin dumarka waa loola bareeraya adiyad marka su'aalihi ragga aan loo hortay karin dumarka waa loola bareeraya marka waxay ahayd tiri ragga in su'aalaha noocaas la weydiiyay gabadhan waxay ku soo beertay Bollywoodka 2007 markaas oo filimkii Sawari ay la keentay ninka lagu magacaabo Ranbir Kapoor kadibna waxay bar noqotay gabar caan oo dalxiiskiisa samayso ahead love stories samayso Rajahan ay samayso iyo Khubsuurada ay samayso iyo Dolika Doli ay samayso Baram Ratan Dambayo oo samayso Narja ay samayso Batman ay samayso Ferdi Wen ay samayso waxa xusuusan in xitaa Zoya Factor waxa filimkeeda ugu dambeeyay ee dabcan gabadhan ay samayso marka Sonam Kapoor waxa xusuusan in xitaa homosexual ay ciyaarta director ah oo filimkii Ekladkii ko dekaalad ee dabcan ka soo muuqatay ninka lagu magacaabo Raj Kumar Rao iyo gabar kale iska soo muuqdana waxay ku samaysay filimkaas inay tahay dabcan waa jinsiga noocan ka hadlayna hadda ku samaysay marka gabadhan hadda waxay sameyn rabtaa ama dib u sameyn rabtaa filimkii Plan oo ahaa filim Korean ah oo amaro looga sheekeynayo historigiisa marka filimkaas ay sameyn rabtaa gabadha lagu magacaabo Sonam Kapoor waxay ka hadashay dabcan iyadoo filimkaas laga wareysanaya qayb kamid ah dhibaatada gabdhaha lagu lahayo Bollywoodka marka Firdawso dabcan sheekooyinkan intaas ay barnaamijkeenina Axmedow intaas ayuu noogu eegyahay